بسم الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal maanta waxaan jeclaystay laba riyo qofka ku riyooda kheyr badan u tilmaamayso micnooyin culus u xambaarsan. labadaa riyo mid ka mid ah qof aniga dadka ii dhow ayaa isoo su-aalay, sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan muuqaal ka dhigo. qofkii already waab u jawaabay. marka waxaa rabaa inaan idiin sheego riyadan maadaama riyo farxad ee le ay tahay bashiro ay wadato. waa dhisitaanka guriga. nambarka 1, qofka guriyooda asigoo guri dhisayo waxay u xambaarsan tahay bishaarooyin badan. waxay kale u xambaarsan tahay tijaaro oo rabaaxad leh, oo faa-iidooyin soo galaysa. qofka hadduu yahay qof tijaari ah, sidaa hore idinku sheegay, qof walba iyo xaalkuu ku sugaya ayay riyada u fasirtaa, soo maaha. qofka hadduu guriyooda asagoo guri dhisayo caadi ahaan uu yahay qof doob ah, aan guursanin, rag iyo dumarba, waxay u tilmaamaysaa guur. haddii uu yahay guriga guri qurux badanoo dhismihiisana fiican oo adagoo u eg guri aan dumeynin oo adkeysi leh, qaabkiisana qurux badan. mar walbo guriga qurux badaya riyada dhexdeeda waa mar walbo kheyraadka rabbi ku siinayo aada u badan yahay. hadday tahay xoola, hadday tahay hidaayo, hadday tahay waxbarasho, wax walbo rabbi ku siinayo waa mar walba ay xoog u badan tahay. sidoo kale wuxuu tilmaamaya dhisitaanka guriga guuleysi iyo ka guuleysi matalan waxbarasho iyo nolosha camaliyanba, iyo sidoo kale xasilooni nafsiyan. waxay kaloo tilmaamaysaa, waxay horta astaan u tahay dhisitaanka guriga waa guul iyo maxaayad horumar. okay, aan u imaano. haddii gurigaa yahay guri jiracsan, matalan dhinacaad ka dhisaysaa dhinacayuu kusoo dumayaa, mise ma qorxano, mise waad ku daalaysaa dhisitaanka guriga riyada dhexdeeda. taa waxay noqonaysaa qaraaraad qalad ah, go-aamo qalad ah inaad iga qaadanaysid, mise dhibaatooyin inay jiraan. calaa kulli xaal, laakiin dhisitaanka guriga keliya bis dhismaha, fikradda dhismaha keliya waa riyo aada u fiican oo arsaaqaday tilmaamayaan, xasilooni ay tilmaamaysaa, kheyr badan ay tilmaamaysaa, aqoon iyo waxbarasho iyo guuleysi nolosha ayay tilmaamaysaa. wallaahu yaclam. lambar 2 waxaa waaye, haddaa ku riyootid adigoo dhul beeraay mise meel beera ayaad beeraysaa. beeritaankan sidoo kale kheyraad aada u badan ayaa lagu tilmaamay. ibnu siriin wuxuu leeyahay, haddaad ku riyootid adigoo dhul beeraay oo beertaasna ay tahay cagaar, dhulka uu cagaarnaayo quruxsanaa, dhul oo barwaaqaysan ka muuqday, waxay tilmaamaysaa kheyraad aada u badan iyo acmaal saalixa. inuu haddaa tahay saaxibul sadaqa, matalan qof sirta ilaaliyo, qof aan xanta badnayn, caamaal noocu doona ahaado oo saalixa. sidoo kale haddaa beerta ay lahaydna geedo cagaaran quruxsan, owlaaday tilmaamaysaa duriyad saalixa inuu rabbi ku siinaayo. sidoo kale haddaad aragtid cakiskeeda, waxaad aragtay adigoo beeraayo meel dhul oomana ah, biyo lahayn, geedaheeda ooman yihiin oo qalalan yihiin oo yaabis ah, taana waxay tilmaamaysaa inaad matalan xoolaha aad ku bixisid meel aan munaasab ahayn loogu talagelin, mise subxaan allah, wallaahu yaclam. riyadaa maba fiicnaba inaan ku fogaana maahan. riyo kheyr kuu tilmaamaysa maaha. murugada aan kasoo noqonay, haddaad ku riyootid adigoo dhul beeray oo isla markiiba geedihii aad beertay, wixii aad beertay intay baxeen miro dhaleen, haddaad ku riyootid waa riyo aada wanaagsan. waxay tilmaamaysaa riyooyin rabbi dhaqsi kuu rumaynayo. caadi ahaan adiga riyadaasaad ku riyootay, caadi ahaan fil ardi waaqacan adiga waxaad haysatay riyooyin, rajooyin ayaad lahayd inuu ilaahay rajadaas kuu rumaynayo, murugadaadana rabbi insha allah farxad u bedelayo. haddaad ku riyootid qof amwaadkeena ah oo dhul beerayuu beerayaa, taa waxay tilmaamaysaa sadaqooyin mise camaal saalixa loo sameeyey, mise dacooyin inay meydkaas gaarayaan oo rabbi kuugu bashaaraynaya ku leeyay waxaad u sadaqaysatay waalidkaaga mise walaalkaaga mise qofka almuhiim oo meydka ahay inay gaareen. riyooyinka meydka dadka dhintay, maadaama hooyadii aabahey dhinteen, aada ayaa u jeclaha inaa riyooyinkooda aan si fiican u fiiriyo, ilgooni aan u lahaado.
wayna wanaagsantahay inaad riyo aad ku aragtay dadkii aad jecleed maadaama fil ardi waaqic aadan arkeynin. halkaas ayaan kusoo koobaya walaalayaal wixii su-aalaha qaybta commentiga insha allah. wassalaamu calaykum.